يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعباس جنرالك عباس باي صاحبي دمانتين والي سلامي ما تنسى أوجدين يا صولابته أنا مقعي صاحبنا بوق دمشهد وقدام بنتي إسباك حلقة شناد ويسو دكتي لكن سداوا تيم بوق دمشهد حقين هوسا وديق ساقياسا وقول جيب 4 شهدا انت سنو ورالجين أصحابتي تيم بوق دمشهد أرالجين لاي حدا ما حلقة دينا حماسد وحلقة شناد إنا هردع نقضها يمر وكلي صاحبي توني كينا كما سنتين أنا مهدي علنا وأنا نجعلها قلبي أنا نجعلها يا صاحبي وأنا ما سنتين حلقة دينا شناد ما حماسد وهي بلابا نوصل يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم حلقة دي النوب بالله ما تبحي حلقة معدها هي xalaqadii hore marka dib ugu laaban ina ogaano Misa Amane gabar lagu magacaabay ina ahayd kiraha labaad sidoo kale ogaano Misa inay aad u jeceshahay Light ee u sameeynayso wax walba uu rabo oo indhaha Shinigami ugu baahan yahay Light wajhi ma lahayd danta oo leeyahay kaliya waxa waa indhaha Shinigami Misa inuu isticmaalo oo kaliya Light waa ka ogolaaday Misa inuu wax rabto u sameeynaayo laakiin waxa ka horeeyay indhaha Shinigami inay u hibayso wax rabto u sameeyso Light indhahaas dan weyn oo kaliya wuxuu rabaa magaca El inuu ku arko laakiin asiga sharadkaas inuu gali marwaba Misa sharadkaas way soo gashay Shinigami gareem loo yaqaan la soo gashay cimrigeedana kalbaro noqday laakiin Light wuxuu ku dhahay hadda wax yar oo qayaana ka arko aniga ku dilay abuugay ku adeegsanayo laakiin sadaawada markaas gudaheeda waxa dhacay wax la yaab ah in Shinigami gareem loo yaqaan oo dhahay Light hadda Misa wax yar adiga ku sameeyay xataa qalad ku sameeyay xataa aniga ku dilay gacanteeda ugu dilayo taas micnaheedu waxa waa Shinigami gareem inuu Misa aad u jecel yahay oo rabo xataa taas sameeyo buugiisa asiga khilaafo oo asiga reem xataa dhimanayo waana sharciga Shinigami u yaalo intaasaan soo aragnaa hadda xalqadeena waa sii wadanayna insha Allah Light hadda wuxuu ku qasban yahay nasudiisa u difaaco inuu Misa ilaaliyaba oo waxba uu gaarsiinin laakiin hadda qorshihiisa dantiisa bis uu ku fikiraa Misa heshiiskeeda wuu yeelay ee wax walba uu sameeynayso laakiin markan wuxuu dhahay waxa rabaa il ana magaciisa saxda ogaado ilaa Shinigami ku ogaataba bidi subaxi ani asiga wada kulmayno markaas meesha waa ina imaata markaasna ilma magaciisa saxda waa ina ogaataa Light waa sameeyay sidaas el waa way wada kulmay sidoo kale meeshaas Misa ugu wacay isla markaas gudaheeda el ay Misa way wada kulmay Misa waxay dhahay magaciiga waa Misa Amane waxa gacalisada Light el wuxuu dhahay barasho wanaagsan magaciiga waa Hidaki Ryoka markaas waxay dhahay Hidaki Ryoka Misa waxay la yaabantaa magaca uu sheegay iyo magaca kor uu qoran laba kala yihiinba markaas Light ka soo dhaxgala ayda saan waa marwaba magaciida cusman ka maqashay ayda isku xaqasantaa ilaa ha u qabanin markaas Light maskaxiisa wuxuu ku leeyahay Hidaki Ryoka el waxa taa waa ogahay kulay laakiin magaca saxda hadda ogaadaba adiga isqaladay meesha iskeentay guushuna waa dhankeyga markaasna daawaday Light wuu argagaxa markuu arko il wajigiisa isku bedelay waxayba u muuqataaba Misa inuu waxba ka og yahay oo arintan uu fahmaba markaasna ayaga kulunkooda ma soo ku dhamaanaa Misa way iska bixiyay markaas Light wuxuu leeyahay waa ina hadda waca Misa saa u ogaado magaca el markaasna numberka Misa markuu el oo gacantiisa ku jirtaba telefoonkeedaba goormo ka qaadana sababta uu qaadana maxay tahay Light wuu yaaba goormo ka qaada telefoonkeeda waa wax cajiib ah anaba la sugnaaye markaasna el askarta soo wacis waxay leeyihiin kiraha labaad gacanta ayaa ku dhignay elna wuxuu Light u sheegay in kiraha labaad gacanta lagu dhigay ee tahay gabadh lagu magacaabo Misa Amane haddeena naga tagtay yaa sidoo ku ogaadana sidaan dhaqsiga askarta intay soo socotay gacanta ku dhigeenba Lightna wuu yaaban yahay sidoo ku ogaaday in kiraha labaad ina idin tahaba waji kale isticmaalaysaba waxaas macquul ma ahan el wuxuu leeyahay saaxiibadaada hadda ugu sheekaysanayna kiraha labaad ayada tahay sababtan waxa waaye anjalo anigu gacanta ku dhiga oo soo duuba kiraha labaad ayaa waxa ka aragnay tiiriisa tintaas wuxuu ka muuqatay in Misa Amane inay tahay anigana sidaas ugu sheekay haddana askarta way wadeen wixii nageeyay goob gaar ah oo hadda warka lagu dhalaalin karo wallahi el halis waay el ana Light ku raacsanba ninka mardhow kira gacantooda ku dhigaaba sidoo ku ogaada Misa Amane ba cajiib ahba Ryogana waxaan oo kala uu ku raaxaysto wuxuu taagan yahay Light ninka kabtiisa kuma gasho ku dheh ama iskaga cararno markaas kadib waxa arkayna Misa in qol gooniyo lagu xirabo aydan aan hadli karin aydan xiran tahaba Light wuxuu sameeyay garamay wuxuu ka boqoyay Misa wax uun ba inay askarta u sheegto laakiin Misa aydaaba ogoleen ba si walba loo ciqaab wax loo weydiiyay aydaaba sheegayninba Misa reem Shinigami la socdo waxay ka dalbaday hal mar inuu dilo oo nafta u dhaafiyo laakiin reem arintaas Misa uu sameey karo waayo aad u jecel yahay mana rabo inuu nafteeda ku xadgudbo sida ogeed wuu baxa wuxuuna aada Light soo caawin u weydiisto wuxuu leeyahay Misa dhibaato faa'iido ku jirta waxaan niga rabaa inay caawisiin markaan Light aniga caawin ku weydiisanayo hadalka ku dhaana waa ka raargelinaya laakiin kaliya Misa caawi laakiin Light maskaxdiisa aan caadi ahayn wuxuu diyaariyay qorshe aan caadi ahayn Misa lagu soo badbaadinayo qorshaasna reem inta loo wadaagay wuxuu ku leeyahay Misa u tag waxaana ku dhahdaa buuga dhimashada iska wareeji waxaana dhahdaa eriga buuga waa iska wareejiyay sidaasna waxa ka wareega buuga dhimashada in markidiis tahay xasuustiisa dhan waa ka masaxmay yani horada u isticmaal jirto oo dhan taasna waa sharciga buuga dhimashada u yaala yani malkiinaha in aad tahay hadii iska wareejinaysid waa in xasuusta oo dhan buugas laga masaxa horana Light Ryog ugu sheegay taas waana xalqada koowaad laakiin daawad waxa la yaabay xataa Light xataa naftirkiisa wuxuu qorsheenayaa inuu asiga naftirkiisa xasuusta iska masaxoba oo yani wuxuu damacsan yahay buuga dhimashada inuu asiga iska wareejiyo xataa oo na dhaw Ryog igu wareeji oo maxay taas sababta uu ku leeyahay marka maya macna in waxay la tahay arinta
muuqataa qorshe weyn oo ka wata Light misna markaas Reem waxay ku leedahay ana buuga dhimashada waa iska wareejiyay misna xasuusta buuga dhimashada oo dhan waa kama saxmaa inay hore u soo isticmaasho oo dhan Lightna qorshihiisa labaad oo ku dhaqaaqa wuxuu leeyahay ani xataa wali shakiinooya aabe taasna waxa uu galaa kara maahan hadii saaxiibadeeda kiraha labaad loo maleeyay anina waxa la maleeyaa kiraha saxdiina ah ee aabo waxaan iga dalbada inay cabsiga gelisiin Light aabiis yushiri game wuxuu leeyahay maxaa waa Light waxa ku hadlaysid yaa ku dhahay kira adiga waa inay maxaa dambiyan un isku saareenay laakiin se el wuu ku shakisan yahay inuu Light oo yaa kira waana shakiga oo weyn oo ka qaba Light markaas kadib Light xabsiga la gelinaa si oo loo ogaaday inuu kiraha labadood ay yihiin mid kale markaas gudaheeda daawad waxa dhaxay wax la yaab ah Light wuxuu u muuqdaa sida qof kale oo kale wuxuu leeyahay aniga maxaa meesha ay keenanay aniga kira mi maxaa meesha isoo gelisin kira mi yaa sheego yahabe oo Light qorshiis wuu ku dhaqaaqay xasuusta oo dhan way ka masaxmatay riyogana ka masaxay markaas gudaheeda daawad waxa dhaxay inuu dilka wali si badan yahay dil fara badan oo dhacooyane oo warsay ku dhacdo labada kira waa xiran yihiin be sidee ku dhacdo waxaas Light wuu xiran yahay sidoo kale mis wuu xiran tahay wax ma xay kiraan saddex intoona yimaaday waa wax la yaab ah el wuu yaaban yahay el sidoo kale wuxuu ka yaaban yahay Light ma qof kale ma noqdane wuu isbedelay asiga oo dhan Light ka xasuusta ka masaxma wuxuu leeyahay waxaan oo dhan waa kira qorshihiisa aniga ma ihi kira markaasna el wuxuu ku aan ku gaaraa in labadooda la iska fasaxo maadaama kira wali oo sii jiro hataa labadooda ay xiriin hataa laakiin wuxuu leeyahay labadii mig ag fogaanaysa ana indhahayga nigu haynayo laakiin waxa la yaab daawad waxaan sidee ku dhacaysa anigu waxa ognahay kira inuu Light yahay sidoo kale mise ay tahay kira labaad waa maxay kira saddexaad intoona yimaaday oo waxaan oo dhan daawad ana dib nigu sheegay waxaan oo waxa ka dambeeyay Light wuxuu daga daawada qorshe maskax bin aadan ana deekin hataa ibliis madaxa ka qabsanayo meel aad u fog wuxuu ku balimay Reem iyo Riyog wuxuu ku dhahay waa inaad si fiican dhigeysatiin qorshahan waa qorshe oo ningira taana inaad ugu dhaqaaqdin hadda mise maadaama xasuusta oo dhan ay ka masaxmatay buuga dhimashada gacanteedii ku jirin waxaan iga rabaa in buuga dhimashada kala bedelatiin laakiin Riyog marka hore waxaan ka rabaa buuga dhimashada buugayga heerar ama rules feega inaad ku qorto oo waxba aan ka jirin marka ku qorto waxa ka rabaa inaad Reem farta ka saartay Reemna adigna waxa ka rabaa buuga dhimashada mise ay leedahay inaad Riyog farta ka saarto sidaas waxay noqonaysaa buugta dhimashada inaad dhaafsanay oo buuga dhimashada Light oo leeyahay Reem gacanta ku jira sidoo kale mise wuxuu buuga dhimashada ay leedahay waxa ku jira Riyog sidaasna waxay noqonaysaa labadooda buug inay kala bedeshteen markaas Light Reem wuxuu ku leeyahay waxaan ka rabaa buugayga dhimashada inaad farta ka saartay nin waalan oo waxba aan kala garanayn wax walba iska dilaayo hadda intaas aad sameysay inta kalena aniga day ana meel saaraaye oo war Light muxuu ka damacsan yahay waxaan war Light maskaxdan maxay tahay niyo ka maskax ma ahane Riyogna wuxuu ku leeyahay mise buugeeda waa inaan meel ku dugtaa qorsheyga oo dhan markay influence markaas soo bixinayna Light markaas ku xabsiga ku sugan Riyog wala sugan wuxuuna ka dalbana xasuusta oo dhan buuga inuu ka masaxo Light sidaas xasuustiisa oo dhan u masaxmatay wuxuuna ku soo laabtay sidiisa hore wallahi Light maxaa cajiib tahay qorshahan hadii shaqeysa anaaba ku saxbinaayaba ninka waa Light oo Reem la sugnaan buuga Light oo isticmaalayo wuxuu arkabo iska dilooyaa askartii wixii dhan uu arkabo baabiinooya halka dhanka el oo go'aan ku gaaray in Light shaqadiisa uu ku soo celiyo si kiiska kira ee garb isku siiyaan laakiin daawada waxa ogaata qofkan waa Light ka saxda ma ahan kira shaqadiisa si nadiif oo gudanaa elna garab fiican oo siina waxay galayeen kiis labaad shirkad lagu magacaabo Yusuf ayaa dilal fara badan maaska dhacooyo sidoo kale kiiska waxay ka ogaadeen dilal fara badan meesha laga geysanayo in shirkadaas qofka ku sugan inuu yahay baaritaan fiicanna markay sameeyeen waxay ku guuleysteen in ninka waalna oo maas ku sugnaayba dilalka fara badan u geysanayay ninkan asigoo baawur wato asiga gacantiisa isku dil rabay gacanta ku dhigayaan yushiro game Light aabiis wuxuu weydiinaa waxa ay sheegtay dilalka fara badan saa u geysanaysa ii sheeg ninkan wuxuu sheegaa sirta wuxuu leeyahay buug lagu magacaabo Shinigami oo dil fara badan ku geysan karto qofka magaca ku qortana dhimanayo buugaas adeegsanayay Light aabiisna buug markuu gacanta ku taabto wuxuu arkaa oo Shinigami Reem loo yaqaano indhiisa saaray elna gacantiisa ku taabtay oo wuxuu leeyahay Shinigami la sheegay ma waxana waa makhluuq aad u dheere Lightna buugan asigana wuu taawana markuu taabtana daawada waxa dhacay oo Light xasuustiisa oo dhan mar u soo laabanay xasuustii oo dhan inuu ahaa ninka milkiilaha buugan dhimashada iska leh sidoo kale Riyog inay wada kulmeen Shinigami oo dhan Light wuu soo laabtay maya waxa soo laabtay kira wuxuuna leeyahay wax walba waxay u socdaan sida aniga u qorsheeyay waana guuleystay isla markaasna Light wuxuu rabaa ninka buugiisa dhimashada haysto soo urta u sheegin askarta war ugu dhalaalin wuxuu rabaa inuu dilo saacadiisa boto ka taabana wuxuuna ka soo bixinaa warqadiisa buuga dhimashada ka reebtay war waxaan maxay tahay Light maskaxdana maxay tahay ibliis iyo caruurtiisaba ka yaabeen ka maskax mal dhigi kare adiga shaydaan ma tid bin aadan ma tid shaadiintaba fardheey tahabe cirbada yiriisa fartiisa intuu iska hadha wuxuu ma dhiig ku daaro markaas magac warqada ku qoraa ninkana sidaas uu ku dhimanaa askartan waxay warka dhaalan lahayn sidaas ku waayeen wallahi Light maxaa baasir tahay aqli badan wuxuu isku qasbay inuu asiga naftarkiisa xasuustiisa iska masaxo si dantiisa u gaaro mana ka baqan buuga doo taaban waayay in kale waba tala saartaba maya tan tala saara mal dhigi karo waa kalsooni maskax buuxa oo Light u qabo muhiimadii marka u soo laabana askarta shilay qabsanaya si buugan sirtiisa oo dhan loo ogaado waxay akhrinayaan buuga heerarka leeyahay laakiin sida ogtiin buuga heerarka dhan waxa ka bedel Riyog oo heerar fake oo waxba ka jirna lagu bedelay heerarka ama ruleska oo Light dejiyo heerka koowaad waxa waaye in buuga dhimashada hadii la gumo ama wax gaar ama la jarjaro qof walba oo taabtay inuu dhiman doono taasoo ka micnaha in buugan dhimashada weligiis ay jiri doonto sidoo kale xasuustiisa xataa ay sii jiri doonto heerka labaad hada u gudubna wuxuu leeyahay qofkii buugan dhimashada qoritaan ku bilaabo inuu ku wada muddo 13 bari ah qoritaanka ku joojinin waa inuu joogtiin ku wada maalin oo 13 bari dhameystiraado taas sameey waayeen asigana wuu dhimanaa hal mar la weynaaba taasna waxay noqonaysaa daawada mise ilaa shakiga laga qabo inay meesha dhanka baxaysaba waayo xabsiga waxay ku jireen muddo 2 bilood ah oo 50 maalin gaarayso hadii taas ay micnaheedu tahay 13 bari macnaha waxa waaye shakiga ay ka qabeen askarta mise Light meesha way ka baxeen labadooda kira ma ahan war Light maxaa sameeysan
niyo ayaga dhan wuu ku dheedheelid ilma camal ugu ciyaarooyaa warniyo maxaa maskaxdan wax ma isiisniyo imtixaanaadkan faraha badan maskaxdeedu wareesheenba boqolkiiba hal hada iga sii lawa ku faa'iido lahaay muhiimadeen marka usoo laban mise ilaa shaki laga qabo xataa ilaa xataa ka qabansan ku baxday waayo fikrada oo light dagay aw fikrad aan caadi ahayn oo aad u shaqeysay laakiinse light mise shakigu ka qabay meesha ka baxday wali heerarka buugan kuma qadcin sidaas awgeed mise light oo iska fasaxa light mise u tagaa intee wada kulmaan wuxuu ku leeyahay day jecesha xasuustaada waxa ka dhiman waa ina meel ku tilmaamo meesha hadaa tagtana xasuustaada oo ku soo laabay buugaas taabo mise meesha light u tilmaamo markay tagtay buuga taabata hal mar xasuusteeda oo soo xasuusanay markay soo wada xasuusto light warqada u reebo warqadaasna markay akhriso ayuu ku leeyahay mise warqada hadaa aragtaa akhrinayso xasuustaada oo ku soo laabata sidaas awgeed waxaan ka rabaa maalintaas magaciisa saxda waa aragtay ee soo xasuusto buuga dhimashadana ku qor laakiin mise oo ma xasuusto magaca mana xasuusto magaca eel saxda waxay leedahay maxaa sameeyaa sawo inuu jiba light law igni jiba maxaa sameeyaa maraba jecelkay inuu iga niyo jabo markaasna Ryuga inta u waada waxay ku leedahay waxaan ka rabaa Shinigami inay sharad kula galo hororeema shalay gal indhaha Shinigami inuu waay laakiin hadda waxaan ka rabaa mar kale in indhaha Shinigami soo cishto adaana sharad kula gala markaas Ryuga wuxuu ku leeyahay hadda marka sharad ila gashid ogow horaa sharad u soo gashay cilmigaaga kalbar uu noqdo hadda kalbar oo siina qaabo haaf oo siina qana aydan mise oo daacidnimadeedu way dhameys waxay leedahay intaas caadi waa ogolahay ani light wuxuu rabaa inuu sameeyo rabaa oo wallahi dumarku laga doorto waatan markaas mise dhiirka way soo galay laydan umaanay waxay leedahay hadda inaha Shinigami waa soo cistay waxa rabaan ku sameeyna laakiin daawada Shinigami reeb intuu shaashada camera intuu ka arko wuxuu arkaa mise in cimrigeeda haaf ay tahaba oo yacni haafka asiga sharad oo la galay inay ka sii yar tahaba aad u naxa wuxuu leeyahay warlayd muxuu gabadha ku sameeyay oo sharad kale ay ku gashay asigana aad u walwala waayo reem aad u jeceliyaa mise laydan markaas mise wuxuu ku amray in mujrimiinta oo dhan sii dishay inta karaankeeda ay tahay laydan markaas eel u soo laabanaya ilaa marka xal waba keenaba xal buuxu haya wuxuu leeyahay buugan hadda gacanta ku hayno kiraa kuwada ama kiraa walaado qofka iskale ilaa hadda gacanta kuma hayno ninka anigu gacanta ku dhigayna kira ma ahayn ee kiraa dilay anigana heerarka 3 bari ama ku qanacsanayba waa ina buugan baroobeena qof aan ku qornaa ayaga dhamaantood ay yaabaan waxay leeyihiin sidee ku sameynayaan ku baroobeene markaas eel wuxuu leeyahay waxa keenayna qof oo buugan adeegsanayo oo nin mujrim magiciisa ku qoraayo hadduu ninkaas mujrimka oo dhinto waxaan u cadaaneen buugan buug dhimashada uu yahay buug sax uu yahay tan labaadna waxa suugaynaa qofkan buugan isticmaala 3 bari inuu dhamaato markay u dhamaatana oo doo dhinto waa kaas haddoo dhimanin waa sida arabnay haddoo dhimanin waxaan u cadaanaysa in heerarkan oo waxba ka jirin oo fake ay tahay laakiin haddoo dhinto waxba naga ba'ayana qofka dhintan waa nin mujrim ah sidaasna waxa rabnaa ku ogaahayna kirana qofku yaana waa soo saarayna kiiskina horan uu socaa oo war el caadi ma ahan cil caadi ma ahan fikrada caadi u shaqeynaa doo sameeyo laakiin daawo Shinigami reem wuxuu leeyahay hadii sidaas ay sameeyaan mise gacanta ku dhigayaan hadii gacanta ku dhigayaan waxay ku sameeyaan hadii dilayaan yaa og ani taas ma ogolaan kari markaas gudaheeda daawada light sidii shaydaan oo kale wajiga inta u bedelo wuxuu leeyahay waa ku ogahay reem inaa mise badbaadinaysa markaan oo kale wax walba u sameynaysa naftada xataa u horeysid waana wax aniga raba taasna qorsheeyay ahayd hadna gacantii ku dhigayaan saa u hortageene wada kale ma haysid ajecelka badbaasatid oo war light heer wuxuu marooyaa xataa Shinigami ku ciyaaraba reemna markaas wuxuu leeyahay light Shinigami waa ogi tan in ugu dhaceyso anna mise wax walba u sameeyay nafteedan u huraa markaas reemna hamar buugis mashatal soo baxo wuxuu ku qoraa caawiyaha koobad el watari oo ismarkaas gudaheeda el soo dhahay watari maxaa kugu dhacay el hamar wadnaha istaaga fadhigiisuna hamar ka dhaca waana dhimasho wadna xanuuna maya haydhiin el waa geeriyooda maya haydhiin laakiinse daawada sidee u muuqatay el waa geeriyooday oo el waa geeriyooday muxaqiqii ugu weynaa ee adduunku wuu geeriyooday el layna saaxiibkiisa geeriyoona intuu gacantiisa ku qabto wuxuu soo xasuusanaa hadal asiga dhahay el wuxuu light ku leeyahay weligaa adduunka inta ku nooleed wax been ama sheega miya oo runtii ma ku adkaysatay layna markaas wuxuu ugu jawaabay waa maxaa Ryuga saaki su'aashan bin aadan aan been sheegin adduunka ma ku noolaba qof walba been u baahana qof runtii adduunka ku adkaysanaya ma jiro waana bin aadanka u sameeyay yihiin markaas el wuxuu ugu jawaabay aniga jawaabta inay ugu jawaabayso waa ka filinay bin aadan saas oo kale adduunkan waa ka waayay laakiin sidaas ay tahay adiga kaliya saaxiibkii ku arkaa markaas light daawada wuxuu sameeyaa wax shayaadiinimo intuu saaxiibkiisa geeriyoona intuu wajigiisa u bedelo wuxuu ku leeyahay beenta waa loo baahan yahay el waana adduunku wuxuu ku dhisan yahay markaas light intuu iswaalo wuxuu dhaqmaa ka annama inuu u qiiroonayo oo kale dhimashadiisa maxaa baaster oo doqonaa tahay light tan aniga ku maracsani el mar walba uu ogaa inuu light kira yahay laakiin sidaas ay tahay si toos uma sheegeenin laakiinse maxaa sameynaahay kira guuleystay light guuleystay laakiinse el asigoo guuldareystay xataa oo kira oo soo qabo waay wuxuu ah character aan caadi ahayn oo maskax badan oo dadka dhan ka heleen wax kala ah legend cid ku ilaawi doonto ma jirto markaasna askarta oo dhan light ABC Shinigami waxay soo qayb galayaan janaasada el aadan u wadacinayaan laakiinse daawada light wali ma iloobin el intuu dib isku dhigo qabriga kaliya soo imaado wuxuu qoslaa daawada sidii ibliis oo kala wuxuu leeyahay askarta misoo dabgalaysa sidoo kale misna xasuusteeda u soo laabatay inaa Shinigami waa haysta adigana oo lakad igu aheedna ugu dambeeytana waa iga dhimatay hadna adduunka aniga u taliyay cid iga soo dhaxgal karta ma jirto el guusheeda aan caadi ahayn maxaa ka leedahay ha ugu dambeeytii aniga ka guuleystay oo warni kan horror waay wallahi horror waa xataa Ryuga xataa uu ka yaaban yahay weliga ninkan qof bin aadan saan oo kale weliga ma arkin uu leeyahay light wuu guuleystay wuxuu u guuleystay si aan caadi ahayn maskax badan adduunka mujrimiinta jooga sidoo warba u baabi'ina hadda cid ka hor istaagaysa ma jirto wuxuuna qaatay light 4 sano
uu wax walba sameeynaayo adduunkan xaakim uu ka noqonayo misna wuu haysta indhaha Shinigami haysto light adduunkan mujrimiinta sidan ma wax walba uu sameeynaa mise qof kale kor istaagi doona soo bixi doono waxaas oo dhan waxa ku arki doona xalqadiina soo socota insha Allah daawada xalqadiina ka yeesha like iyo subscribe kana iloobina waana ma santiin oo waa ka xumahay ina ilweynay